haddaan nahay odayaasha dhaqanka iyo siyaasadda beesha tunni waxaan jawaab waafi ah ka bixin doonaa arrimaha oo wiigii aanu soo dhaafnay ka dhacay deegaanka Baraawe gobolka Shabeellaha Hoose ummad weynta Soomaaliya min Raas Kambooni ilaa Raas Caseer annagu cid aan si gaar u necebnahay ama cid si gaar aan u diidanahay ma jirto qoomiyadda u digil haddaan nahay gaar ahaan beesha tunni weligeed dadku waa soo dhaweyn jirtay waana dejin jirtay horaan u dejinay haatanna diyaaran u nahay inaan dejino samafal dabeecad wanaag inaan kula dhaqanno waxaan u sheegayaa dadka horboodaya xilligan waa xilli nabadeed dawlad baa dalka kaga jirta dawladdaasina waxaa aasaas u ah in nabadda la baahiyo uma baahni xilligan in maatada marasta la barakiciyo maamulka xagga ka jirana dadka geystay waa annaga beesha tunni ayay matalahayaan waxaan idin sheegaynaa oo idin cadaynaynaa oo aan geedna uga soo gabanaynin doraad annaga idin dejinay haatanna diyaaran u nahay dhulka hadduu idinku yaraado meel kale inaan idin dejino waxaan sheegaynaa aeroboorkaas waa dhul tunniyeed tunni baa iska leh waxaana bixiyay odayaasha dhaqanka ee beesha tunni ayaa bixisay iyadoo wax shuruud aan lagu xirin dan guud ayaan u bixinay marka cid dan guud ka soo horjeeda ayaan lid ku nahay oo aan diidanahay waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ma bixin karo dhul tunni ay leedahay sidoo kale rag baa ku andacoonaya waxay leeyihiin Xasan Sheekh Maxamuud baa annaga na siiyay Xasan Sheekh Maxamuud ma bixin karo sidoo kale Shariif baa na siiyay dadaa ku andacoonaya ma bixin karaan Cabdicaziis Maxamed lafta gareen madaxweynaha hadda koonfur galbeed isagu laf ahaantiisa ma bixin karo waxa bixin karo waa beelweynta tunni ayaa bixinayso annagu diyaar umanihi xilligan inaan walaahow dadka aan gelino shacabka ha loo turo dadka waxaan uga digaynaa cawaaqibkii meesha ka yimaado iyaga inay dhabarku u ridan doonaan dadka in la cunaqabateeyo caanihii laga jaro adeegyada aasaasiga laga jaro waa ka soo horjeednaa diyaarna umahin xilligan hanugu celinana samaashameydii waxaan rabnaa dhaqan fiican dhaqan suuban inaan dadka kula dhaqanno haddii dhulka idin deeqa waa idinku yaraadana haddaayba annagaa idin soo dejinay haddana waan haynaa meel kaloo aan idin dejino diyaar baan idinla nahay dawlad wanaag dabeecad wanaag dhaqan wanaag inaad nagula dhaqantaan ayaan idin sheegaynaa waana ku celcelinaynaa farmaajo ma bixin karo dhul tuniyeed xasan sheekh maxamuud ma bixin karo dhul tuniyeed shariif ma bixin karo dhul tuniyeed madaxweynaha haatanka arrimiya gobolka koonfur galbeedna ma bixin karo lafta gareen laf ahaantiis waan uga digaynaa in maaragtay arrimahaas waxaan codsanaynaa in arrintaas il gaar ah loo yeesho dawladda iyo international community inay soo dhaxgalaan ayna arrintan maaragtay wax weyn ay ka qabtaan wabillahi tawfiiq anigoo ah nabadoon maxamed nuur aadan ka tirsan golaha dhaqanka iyo siyaasadda beesha tunni waxaan halkan ka caddaynayaa inay dhiile ka soo yeertay Baraawe dhiiladaasna loo baahneen xilligeedana laga tegay dadka wax degan weesh waxaan ogeysiinayaa laf walba inay laf ku soo degtay dib ha loogu noqdo taariikhda ha la raadiyo dib ha loogu noqdo
jaanta rogan waxba ma ku hagaagay tantii waa la wada ilaa 9 ilaa hadda jaanta rogan waa wax waa lagu keenay waa laf walba lafay ku soo degtay dib ha u raacdo dib ha u noqoto aan isturxaan bixino deegaankaas 3 garas laga bilaabo ilaa lagu geeyay waxay yiraahdaan waa wada kale 3 garas ilaa goobeen dhultuniyadu cidi degan hal habeenkii kusoo yidhahdeen labada loo gashaakiyay reeroon ku tirsan yahay noqon jaanta rogan waxba ma ku hagaagay taas xilligan waxaan joognaa nabadeen in Soomaaliya dhan laga sameeyay nabadeentii haddii hadda qalalaasi la bilaabo 9 in loo noqdo may raaliga manihi ma yeeleyno dan guud wax loo bixiyo kama hadla karaan tuniyaba bixisay marna hooyo tahay inaad tiraahdo marna tiraahdo dhulka anaa leh intaas ma dhul lagu yeelan karaa maya waa ceebtaas waxaan u arkaa meel ka dhac idanka sharafta iska dilina dadka idin soo dejiyeen sharafeelina waa idin soo dejiyay lafay ku soo degtay wassalaamu calaykum intaas warkayga ugu baxay bismillahir rahmaanir rahiim anoo ka hadalay afka aqoon-yahanada iyo dhalinyarada beesha Shangamaas Tunni may fadaayo ina baaqi yar aan macnaha si jeedii dadka oo maatada ahaayeen oo masaakiimiinta oo qoraxda dhowr ber isku teegnaayeen iyo walaaga iyo banaan baxayeen aqoon iyo ay lahaayeen iyo odayaasha oo marin habaabi ayeen dhalinyaradaasi taasi may macnaha ay ka qasabto ina aan oo baaqaasi si jeedii dadka banaan baxayeen oo jeedida iyo ina banaan baxayeen ina ogaadaan la baahina sababtoo ah shacabka meeshka banaan baxmay dhahanooy dhulka kaan nano qaaday dhul oo lagu qaaday meesha ina ajiraan horta ina macnaha iyo ogaadeen sababtoo ah dhulkaasi dhul Shangamaasna hadii oo Libiya dad is okool tashatay mal cid is okool hay'ad mal wala madaxweynaha is okool tashin wala ra'iisul wasaare is okool tashin wala baarlamaan is okool tashin marka meesha odayaal iyo nabadoon joogeen hadii iyo ina oo macnaha dhulkaasi la baahday dawlad iyo okool xariireed iyo siiyeen dhulkaasi ogaadeen ina macnaha oo iyo dadkaasi qaqaayliidido iriid iyo iska dishideen dhowr beer teegnaayeen ina dhulka iyo isku lahayn dhulkaasi dhul dawlad ay kooyeen iyo waqti muddo oo qarni kooyeen sal dhawaay dadkii soo dhawaayeen ogaadeen ina macnaha ilaa ay hadda joogeen hadii iyo dhul ibaahineen hadda ina saldeeyeen macnaha dhul tuna من ماشيسكو بلاودا اي ماشي كدمادا نوب اسكو اوغن من غلوين الى اي غوبوين تون الحمد لله دول دب ما قبته hadii iyo macna had iyo dhahaayeen dhulkaasi oo isku lahayn garoon oo soo biitaasi wal ku jirmal marka ma ogaadeen oo awal hor dushi iska dhawaayna hadda laan iyo dulqaadkii iska dhawaayna dib walba iyo buuq walba iyo niyadaysan laakiin hadii iyo wanaag iyo niika kooyeen needhan un had meel degni baahin maadaama dhulka kaan hadda garoon lagu weelo dhul unsasiin sanol tashida ma ogmay iyo ina oo meel ka qaayliyo haween oo umulki jirano iyo dhalinyaro oo maanta dugsi lahayn ina ay bank soo biyeen dhul hidaa masalki lahaada macnaha taasi ina ogaadan mid koowaad muhiimada taasi mid labaad degmada ogno ina oo ku jira macnaha ma taqaanaa maamul ina ku jira maamulkii joog iyo odayaashii joogan walba baahina iyo isku suubsadeen iyo odaygii oo isbaahdil us naftay iyaash oo iriidaasay iyo qof ina oo ina dadka ka lidka nagida qofka odayga oo si joojin hadii ilaahay nacam dheh macnaha meel iska baahino meesha ina la iska xirnaada dhulka dadka isku leh lu isku og taariikhda hadii uu reed iran alxamdulillah nabadoonadii ba hadda reego horta ahaayeen bas ku hadaleen min goboyn ila goboyn 3 garas iyadii oo nabadoon manuur u dhadid 3 garas ilaa iyo min goboyn marka dhulka taaktaakal ee gore dadka kayna ma dhamaan ilaa naag ku damboyd hadii naagta ik damboyd joogteen dhulka ila sabiid moogmay oday oo ku kooy oo min ma taqaanaa gobol oo ilaa iyo 50 oo kilometer ku kooy masku tali deegaan weynaha baraawe hidaasi ali ogaado wassalaamu calaykum waraxmatullaahi anoo ku hadlaye golaha dhaqanka iyo siyaasadda gudoomiyaha golaha dhaqanka siyaasadda beesha Tunni baaq waxaan u jeedinayaa odayaashan oo haweenka iyo ilmaha isku soo reebaan oo hormuudka ah saaxiibkay digir baaq waxaan u jeedinayaa waxaas waa soo dhaafnay
xilli dagaal waa soo moodnay lexdameeyda ilaa hadda dagaal aan ku jiro dagaal waa soo moodnay waxaan ku jirnaa dib u heshiisiin ma aha hadda in oo waxaa waaye baseef iyo bilaayo ee la wataa tuna dooni mayno tuna iyadoo guuraysa oo qaxooti ah kaaraan ma imaanan waddankay u dhalatahay degan tahay waxaa la rabaa in maskaxda laga shaqeeya laba oday oo kula jirtan waxaa waaye mid waxaa waaye daaktarifa laaga wataa u kasaa kii kalena waxaa waaye maxaa la dhahaa goygaal meesha dhaqanaa jiray digirow waxaa waaye saaxiibkayga horta ninka koo ku reebi jira ani waaye anaa hadda waxa waaye anaa macnaha dhaliilka anaa iska leh anaa baraawo laayacay waxaa waaye waxaana sii xasan sheekh maxamuud maxaa la yidhaha shariif sakiin iyo lafta gareen waxaa waaye dowladda kumeel gaarka hayda ugu sareeya ma dhiibi karan dhulka maxaa la yidhaha xasan sheekh maxamuud dhul ma dhiibi karo shariif sakiin dhul ma dhiibi karo wararkii oo maxaa la yidhaha cabdiraxmaan cabdishakuur haddaad raacda maxasi mareer guriha kuu geey laakiin dhulkaas dhul oo qontomey haddii la deganaad milka ad u yeelinays maaha dhul tuniyeed waaye shabeelka waa dhimi karaa maahan oosma uno digirow inaa xisaabtanta waa loo baahan yahay nin oday oo muuqado adaa ku jira habar gidir waxaa isdhaantaan fiiri odayaalay leeyihin odayaashooda ma arkin aniga inaan wax ka sheegan qalad waaye adiga inaa xisaabtanta la rabay oolba anaa ku reebi jiray anaa farax kaa qaaday taasaan u arkaa taas waaye waxaa waaye dhulkaas intii gabar ka soo harta dhul tuniyaad waaye ninkii dhibaysa iyo kii ku raaxaysanayba intaasaan sheegaa mid oo idinka hadda siyaasad ka dhigteen ma aha macnaha aniga haydaraan led ku nahay iyo dhinac kalead u baxdeen haydar tuna waaye markii lasoo weerar asiga iyo aqligiis laakiin aniga difaaca inaan difaacan diyaar u ahay waa difaaca nin tuniyeed waaye meesha inaa marmarsii aad ka dhigateen raxiim dhammaan waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogto gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan leeyahay maalin wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shirkan jaraa-id maanta qabteen odayaasha dhaqanka siyaasiyiinta aqoon-yahanada haweenka kasoo jeeda degmada baraabe ujeedkiisu ahaa in ay ka jawaabaan maalmihiin dambe dhibaatooyin ka dhacaya magaalada baraabe inay jawaab cad ah ay ka bixiyaan mowqif kaga aadan ayuu ahaa ujeedkiisa hadalkii horeeyey waxaa hore u hadlay odayaasha dhaqanka iyo aqoon-yahanada siday sheegeen hadal waa kaas meeshuu ku dhamaaday aniga waxaan adkeynayaa oo kaliya haddaan aan ku hadlayo afka siyaasiyiinta madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen iyo golihiis wasiirada cusub waxaa ka rajeynayaa in la yimaadaan howl adag shaqaa hortaalo madaxweynehana waxaan farayaa in uusan ku degdegin sida shariif xasan dadka iskaga hor keenay shariif xasan dhibaato meesha ka abuuray ee deegaanada gobolka shabeellaha hoose iyo koonfur galbeed dhul laisku haysta iyo waxyaaba aan loo joogin dhul dan guud ah oo airboor loo bixiyay hadduu aad ujeedaan marka waxyaabahaas oo kale madaxweynaha waxaan uga digayaa laftigareen in isku fududaanin wixii dan guud ah dadka deegaanka u dhashtay baraabe ee beesha tuni ayaa muxuu ahay wixii dhul bixis ah ku shaqale inay bixiso dhulkan airboorkana ayagaa hore u bixiyey marka madaxweynaha waxaan farayaa inuu ka foojignaado arrimaha qaar oo si ku fududaan hadduu ilaahay yiraahdo dadka siyaasiyiinta ilamadka ahna waxaan ugu digayaa in ay xasarad ka abuuraan degmada baraabe ee ah caasimada koonfur galbeed dagaal hadduu wax taraayo waa lasoo arkay sagaashameeyadii ilaa iyo hadda inta ka dhexeyso hadda waxaa la taagan yahay waqtigii nabad iyo nolol runtii horumar in deegaan walba laga hirgeliyo taasina anaga ma aqbali doon insha allah dadka abuuraya xasaradaha gaar ahaan siyaasiyiinta ilamadka ah waxaan ugu digayaa dadka walaalnimada koley halaga shaqeeya insha allah iyo wada noolaashaha deegaanada. Assalaamu calaykum.